السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل يعني قام على خالد محمد محمد يدمان تيم كحق دل عشان يفرس توعد الله سلامة. وحنا عندكم سلام من سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادراد عشر كنا وحنا كل عندنا ترينومتريك فاكشن. سادرت هذا مقاش الترينومتر إسلام مركب وحنا يدا كسر عيا تريانجل. حاجة لحساب الترينومتريك وحلو مقعبة is the study of the triangle. waxay ka shaqeysaa kaliya maxay triangle ayay ka shaqeysaa saadaraad 10 kan waxaan ku dhigan doonaa bal trigonometry-ga sida ay yaani ma garanaysaa u shaqeeyaan saadaraad waxa la find the value of the three factions by the right angle is a called right angle recall value that the side opposite the right angle is a called hypotenuse and the remaining two sides are called the legs of triangle figure. waxa la marka ugu horeysa waxa soo saartaa value-ga baa la yiri right angle-ka baa la yiri lagu magacaabo ama yaani ma garanaysaa opposite-ka ka soo horjeeda baa la yiri right angle-ka opposite-ka ka soo horjeeda baa la yiri waxa la opposite-ka ka soo horjeeda oo lagu magacaabo hypotenuse and the remaining waxa la xasuusataa marka baa la yiri in hadii hypotenuse-ku uu yahay ka soo horjeeda opposite-ka ay jiraan laba sides oo kale laba dhinac oo kale oo arkood lagu magacaabo the legs of triangle ayaa lagu magacaabaa saddex we have labeled value the hypotenuse value RC to indicate hypotenuse waxaad ku garanaysaa waxa lagu magacaabaa value amarka C to indicate value that length its units unlike manner we have labeled value the legs and because triangle is the right triangle the Pythagorean theorem tells us that waxa marka aad hadaba doonaysid inaad hypotenuse ka heshina waxaad ku helaysaa qaacidada noocan ah oo ah C oo laba jibaaran waxa la mid tahay A oo laba jibaaran oo loo geeyay B oo laba jibaaran saadaraadeen bal hadaba aynu eegno hypotenuse iyo opposite kale inoo kala sheegayo aynu kala eegno dabcan sida aragtaan waxaan ku kala cadeeyay sawirka halkan ka muuqda ayaan ku kala cadeeyay halka waxa la dhahaa iyada opposite ama A-daas iyada waxa la dhahayaa opposite kana sida waxa la dhahayaa hypotenuse halka kana la oranayo adjacent ama B-da la oranayo waxa loo yaqaano adjacent sadarteed waxa la yiri maxay noo hadhay waxa noo hadhay halkaas ayaa noo hadhay halkaana waxa la oranayaa theta ama xagasha ayaa la oranayaa sadarteed waxa la place theta in the standard value as shown in the figure of the coordinates value of the BRAB is also value B is a point of the terminator of that in the circle waxa la sida hadaba caadiga waxa la yiri theta-du waa ka soo horjeed tiisad waxay ina tusaysaa baaliya hadda jeeraale inay A iyo B ay isku midkooda ay tahay saadaradeed waxa la casharkeena waxaan ku eegi doonaa ama aynu ku arki doonaa marka aad doonaysid inaad soo saarto tiisadana waxa lagu soo saarayaa qaacidada noocan ah oo ah x2 waxay la mid tahay x2 waxa loo geeyay y2 waxa x laba jibaaran oo loo geeyay y laba jibaaran ayaa waxay soo saaraysaa hypotenuse way hadaba bal aynu eegno markaa aynu hoos u sii soconno saarka halkan hadana waxaan ku sawiray sawirkan oo ah kii lagu soo saarayay B waxay la mid tahay A/B bal marka aynu fiirino marka xagee baa la oranayaa B-dan waxa la oranayaa bartaas ayaa waxa la oranayaa B bartaas ayaa waxa la oranayaa maxay B sababtoo ah maxaa isku kulmay waxa ku wada kulmay A oo kan ah oo halkaas iyo B oo halka ku dhamaada ama sadex waxa la oran karaa B waxa halka ku dhamaaday B halkaana waxa ka bilowday hypotenuse-ka ayaa halka ka bilowday ayaa la oran karaa saadaradeed halkaasna taas ayaan ku soo saarnay saadexta halkan waxaan ku sawirnay sawir kale ayaan ku sawirnay oo sida aragtaan uu yahay saddexagal sida caadiga ah Soomaaliga halkan waxa la dhahaa shakaal ayaa la dhahaa halkan waxa la dhahaa maxay shakaal ayaa la dhahaa saadaradeed waxa la yiri marka aad doonaysid inaad soo saartid baa la yiri waxa la yiri hadaba sin theta waxay kula mid tahay opposite-ka oo loo qaybshay hypotenuse-ka kaas oo la mid ah oo loo qaybshay C tusaalahan haddaad doonaysid tusaalahan waxa la siiyay labadan ayaa la siiyay A iyo C baa la siiyay kadibna waxa lagu soo saar B-da sadarteed waxa lagu yiri marka labada la siiyay maxaa isticmaalay waxa isticmaalsaa sin theta waxay la mid tahay opposite-ka oo loo qaybshay hypotenuse-ka isla markii weeyna qaacidadan isticmaashaa maxaa yeelay qaacidadan waxay ka anfacaysaa waxa lagu adiga waxa lagu siiyay A iyo C haddaad A iyo C isu qaybisidna
waxaa daqiiqadiiba kuu soo baxaysa b ama adjacency-ga ayaa kuu soo baxaysa. saa darteed haddii aan halkan hoos ugu haddii aan halkan eegnana waxaa la cos theta waxay kula mid tahay adjacency oo loo qaybiya hypotenuse. haddii lagu siiyo b iyo c isla markaana lagu diro opposite-ka waxaad yacni garanaysaa isticmaalaysaa qaacidada ah b oo loo qaybshay c. waayahay tan theta waxaa la tan thetadu waxay kula mid tahay opposite-ka a iyo b. opposite-ka oo loo qaybshay maxay adjacency-ka oo a oo loo qaybshay maxay b. tusaale ahaan waxaa lagu siiyey a oo ah opposite-kii iyo b oo waxa loo yaqaano adjacency, dabeedna waxaa lagu diray c oo ah shakaalkii. marka waxa lagu yiri c soo saar. si aad u soo saartid waa inaad isticmaashaa tan theta. waa inaad isticmaashaa maxay tan theta waa inaad isticmaashaa. saa darteed saddexdan kalena waa rogaalkooda un. tusaale ahaan adiga waxaa lagu siiyey c iyo a waxaa lagu siiyey c iyo a dabeedna waxaa lagu diray b ayaa lagu diray, dabeedna waxaad qaadanaysaa coska theta ayaad qaadanaysaa oo ah hypotenuse-ka oo loo qaybshay maxay adjacency-ga. saa darteed waxaa kuu soo baxaysaa b ayaa kuu soo baxaysa. sec theta iyadana waxaa lagu siiyey c-dii ayaa lagu siiyey ama shakaalkii ayaa lagu siiyey, b-diina waa lagu siiyey, a-diina waa lagu diray. saa darteed labadaas marka la isu qaybiyana waxaa ka soo baxaysa a-di baa ka soo baxaysa. cot theta waxaa lagu siiyey b-dii dabeedna a-di baa lagu siiyey, saa darteedna waxaa lagu diray c-dii ayaa lagu diray. waa inaad isticmaashaa cot theta. haddaba bal aynu tusaale soo qaadano, tusaalahan aynu ka wada shaqayno. marka ugu horeysa waxaa la siiyey a-di opposite-ka waxaa la siiyey a-di baa la siiyey waxaa lagu yiri waa 5, dabeedna waxaa lagu yiri sidoo kale waxaa la siiyey sidoo kale waxa loo yaqaan c-di baa la siiyey waxaa lagu yiri waa 7. dabeedna waxaa la ii diray xagasha iyo waxaa la ii diray waxaa loo yaqaano allahumma sta'an ala ma tasifunay b ayaa la ii diray. si aan haddaba labadaaba loo soo baxo marka ugu horeysa waa inaan isticmaalaa amarka lagu magacaabo sin theta. waa inaan isticmaalaa maxay amarka lagu magacaabo sin theta oo sababta aan u isticmaalaya waa maxay haddii aynu casharka yar dib ugu laabano haddii baa lagu siiyo a-da iyo sidoo kale lagu siiyo c-da oo ay kaa maqan yihiin b iyo xagashu ay kaa maqan yihiin waa inaad isticmaashaa sin theta. waay markaa bal aynu eegno qaabka aanu isticmaalnay. saa darteed waxaan leenahay a waxay la mid tahay a oo loo qaybshay c waxay la mid tahay a waxay la mid tahay 5taas, c-na waxay la mid tahay 7da. waxaan leenahay 7 marka 7 loo qaybiyo waa 1, 7 marka 5 loo qaybiyana waa 0.71. saa darteed theta waxay la mid tahay halkan ay xagasha hadda ii taagan tahay waxay la mid tahay waan leeyahay 0.71. waxay la mid tahay maxay 0.71. saa darteed sorry 0.71 ayay ila mid tahay. hadda markaan waxaan la soo baxay allahumma sta'an ala ma tasifune waxaan la soo baxay waxa loo yaqaano waxaan la soo baxay waxa loo yaqaano tusaalahan waxaan la soo baxay sida aragtaan waxaan la soo baxay waxa loo yaqaano tiitadaydii ama xagashaydii ayaa la soo baxay, balse laakiin waxa iga maqan b-di ayaa iga maqan. saan haddaba b-da ula soo baxo waa inaan b-da sida ula soo baxo sorry okay waxaan leeyahay sida halka ka aragtaan hadda waxa iga maqan b-di ayaa iga maqan. saa darteed waxaan leeyahay c2 waxaan soo qaadanayaa qaacidadii ahayd marka aad doonaysid inaad soo saartid yacni ma garanaysaayey waxa loo yaqaano triangle-kaaga markaad doonaysid inaad soo saartid hypotenuse-kiisa iyo sidoo kale opposite-kiisa iyo waxaad isticmaalaysaa maxay qaacidadan ayaad isticmaalaysaa. saa darteed si aynu u isticmaalno waa inaan hoos tagnaa. waxaan markaa leenahay c waxay la mid tahay c oo laba jibaaran waxay la mid tahay a oo laba jibaaran oo loo geeyo b oo laba jibaaran. saa darteed waxaan leenahay dhinac walba ruudkeenu gelinayna. waxaan leenahay inagu maxaan doonaynaa inaan raadino b baan raadinaynaa. maxaan haysanaa c iyo a baan haysanaa. kadib waxaan leenahay b oo laba jibaaran oo ruudka ku jirta waxay la mid tahay c oo laba jibaaran oo laga jaray a oo laba jibaaran. saa darteed waxaan b ayaan ruudka ka saarayaa oo laba jibaarka ayaan ka tuurayaa, kadibna halkan ayaan imanayaa oo waxaan leeyahay waxay la mid tahay b 7 oo laba jibaaran oo loo geeyay maxay oo laga jaray baan leeyahay 5 oo laba jibaaran. saa darteed 7 laba jibaar waa 49 oo laga jaray 5 laba jibaar waa 25. 49 iyo 25 marka la kala jarana waa 24. 24 xidid ka saar waa 4.8. saa darteed halkan b waxa weeye 4.8. halkan b waa maxay waa 4.8. halkan ay tan theta ii qoran tahayna waxa weeye sidoo kale
halkan ay tan theta ay qoran tahayna waxa weeye 0.71 0.71 0.71 dabcan waa kana intaas ayuu ku ogeyntaa xisaabtan oo kala ku kulmi doono dhamaantii waxaan ku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh